xaflad seer sare loo soo agaasimay oo kulansatay 3 munaasabadood oo kala ah abaalmarinta fasalka ugu fiican bandhigta abuureedka sanad dugsiyeedkan ilaanaya 2022-2023 dabaaldega tartanka finaalka ee isugu yimaadeen labada fasal ee shanaad iyo fasalka shahaadiga ee 8aad ee dugsiga dhexe iyo abaalmarino loogu talagalay hibada ay u leeyihiin arday wax ka baratay xirfadda artiska. munaasabadan oo ka dhacday hotelka Green Hotel degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ayaa waxay ahayd munaasabad ka duwan kuwii hore uu uga dhici jiray xarumaha iskuulka Tusmo. maamulka guud ee iskuulka Tusmo ahna aasaasaha magaca dugsiyada Tusmo macallin Maxamed Ciise Maxamed ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha munaasabada. waa maalin taariikh iyo xusuus inuu ahaan doonto sanadkan insha Allah bidnillahi al-kariim. barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay 3 barnaamij oo kala duwan. barnaamij koowaad waxa uu magac darnay taabuurka sanadlaha ee dugsiga Tusmo. waa la soo tartamay 2 fasal ama 2 group ayaa finaalka isugu soo baxay. guddi gaar ah Qaralaasiyo Ustaad Saalax madax uu ka yahay ayaa hawshan sanadkan bilowgiis ilaa iyo hadda soo waday. guud ahaan iskuulka Tusmo qaybihiisa kala duwan labada gelin ardayda dhigata fasalada kala duwan ayaa tartan sanadle aqooneed ayaan leenahay. sidoo kale macallin Saalax oo ka mid ah laf-dhabarka iskuulka ayaa isna ka hadlay madasha munaasabadii maanta ka dhacday Muqdisho. waxaan ka salaamayaa waalidiintiinan hari habeen inala dul taagan horumarka waxbarashada guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Tusmo. barnaamijkeena koow waxaan u daahfuran doonaa tartamaadka labada group ee kala ah groupka 7 iyo groupka 4 ayaa finalka isugu yimaaday ama ayaga ayaa loo soo xushay groupada ugu fiicnaa sanad dugsiyeedka fagaara ka hadalka ama barnaamijka bandhigdaabuleedka u taqaanaan. qaar ka mid ah ardayda iskuulka xarumihiisa kala duwan ayaa iyaguna waxay halkaasi ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen iskuulka Tusmo. si weyn loo agaasimo oo suman loo qalo haddana geesal weyn iyo gogol suuban loo dhigo. gumeysiga diid irmaan aqoonta maahan keliya iskuul iyo jaamacad kabar waayaha ogaal isteelkaaduna waa cilmiga ay ogow. kuwan waa erey ku qasbay dhagaha ilmada qalbigana u kaxeynaya dhanka badweynta xusuusaha. waa dareen uu dawada ka soo riixa Ustaad Dayib anigana aan diyaar u ah inaan ku beero hortiina. sidoo kale waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa iyaguna qudhooda hadallo dhiirigelin ah ka jeediyey madasha munaasabadii maanta. isku day in aad wadada guusha cagta aad saartid in ay guul nololeed aad gaarto waxaa la yiraahdaa waxay ku xiran tahay hadba xakameynta naftaada. mas-uul ka socda jaamacadda Joobkay oo ah jaamacaddii taabakilinaysay munaasabadan qiimaha badan ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi ammaan iyo bogaadin kala dul dhacay labadii fasal ee maanta isugu yimid tartanka kama dambaysa ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Tusmo. waxaa sharaf iyo karaamo noo ah haddaan nahay bahda waxbarashada khaasatan jaamacadda Joobkay inaan ka qayb qaadano taabagelinta waxbarashada hoose dhexe sare iyo dhiirigelinta jiilka yararka ee maanta soo baxay. mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay fasalka nasiibka uu saaciday aqoontoodana ku yimaada heerkan waad mahadsantihiin. shanaad sacabka hala siiyo shanaad. isla sidoo kaleeto fasalka 8aad ee group leaderkooda uu yiraahday aniga maanta in shanaad iga badiyo dib uma arko maadaama aan form 2 iyo ka soo badiyay dugsiga sare. ayagana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. guddigii tartanka ayaa su'aalo cayiman waxa ay si wanaagsan u weydiinayeen ardaydii tartanka kama dambaysa isugu yimid ee fasalada shanaad iyo fasalka shahaadiga ah ee diyaar garowga ugu jira imtixaanka qaranka sanadkan oo ay dawladdu qaadayso oo dhammaantoodba ka wada tirsan ardayda dugsiga dhexe ee iskuulka Tusmo. sheeg halkee ayuu Maxamed Cabdulle Xalane ku dhashay mar saddexaad fasalka shanaad. abshir macallin Joost abshir miinimo Tusmo Primary and Secondary School Muqdisho.